بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد جاء بالرسالة يسبح مولى ذي الجلالة ويهدد الكفر والضلال. أما بعد فيا أخواتي الأعزاء رحاكم الله ورحمكم وبكل خير صبحكم وأمساكم. وبعد مقعي وحالة لها حاوة نقاش ستيفان waxaan deganahay qaxootiga ifo meeshan aan joogo waa tacdiim kitaabillah ifo. haddaan idinkaga warramo tacdiim kitaabillah ifo waxa aan qabano iyo waxa aan nahay waxaan ka koobanahay haween 132 tiradooda ay tahay waxaana qabanaa kitaabadan aad arkaysaan bilownay oon isu imaanay abaabulkii hore bishii saddexaad ee sanadkii hore naga dhamaaday ilaa hadda ayaan shaqaynaynaa ilaa inta ilaahay ka dhigo subxaanahu wa tacaala. kutubta waxaan ka soo gurnaa marka ugu horeyso dugsiyada madaarista iyo masaajida marka aan sameynana dib ayaga ayaan ugu sii celinaa. sanadkii hadda tagay waxaan sameynay 998 xabo feeski koowaad ee qaybtii koowaad waan bixinay qaybtii labaadna intana ka harsan inaan bixinan diyaar u nahay ramadaanka ayaa nagu soo galay. kitaabada markaan sidan oo kale u sameynayno markii hore waxaan ijaarinay 2 rag ah oo noo sameeyay kitaabada wiilal kadibna seminaar ayayna siiyeen treenino gabdhihii aan noo tababarteen waad arki doontaan ayagoo kitaabada tolahaya 10 gabdhood hadda kitaabada wax ka tolaan haweenka wiilashana 3 bay noo noqdeen tiradooda waan kordhinay. qalabka lagu sameeyay Nairobi aan ka soo iibsanaa kadibna lacag cayiman oo go'an oo aan heshiis ku nahay ayaan siinaa wiilasha laakiin gabdhaha ayaga tacdiim kitaabillah kamid ah ayaga sameeyo xoogooda la baxa. marka kitaabada soo hara ee rifanka ah aan sameysna lahayn aan wax qabad lahayn oo intay halaabeen ama roob ku da'ayna waxaan u sameynay meel aan ku asturno. kitaabka kala dhiman ee la kaabi karo oo jiska koowaad ilaa jiska 30aad jis ama ah inta kaliya ay ka yar maqan yihiin waxaan leenahay mashiinadaas waxaan ku bixinaa photocopy sidan oo kale hadda warqadan waa photocopy aan anaga bixinay. marka kitaabada ayaan ku kaabnaa suuradaha ka maqan iyo safxooyinka ka maqan ayaan ku kaabnaa. marka falillahi alhamdu wal minna marka hore haween yaran ahayn abaabulkii hore haddana 132 tiradayna maraysa qof walbana wixii tabartiisa ah oo asagu isku xukumay ayaan iska qaadnaa. marka kadibna waxaan u qaybinaa wixii lagu soo gadi lahaa alaabta ceyriin ee kutubta lagu sameyn lahaa sida koolada bacda dhalaaliska jaldiyada kuwa ay ka maqan yihiin. markaan alaabta sida aan alaabtan tilmaamayo waa tan oo kale halkan ka muuqata sidaas oo kale markaan alaabta u soo gadano kadib waxaan ka bixinaa kiradii 3 wiil oo noo sameynaysay kiradooda ayaan bixinaa. على كتاب waxay noogu sameeyaan 130 shilin kitaabka buuxa oo dhameystiran kitaabka aan la kaabi karin muxuu ahay photocopy aan lagu gaarin kutubta dhaxdeedana aan looga helaynin oo jisas fara badan ay ka go'een asagana waxaan sameynaa waxaan ku qornaa jaldiga korkiisa meeshan oo kale waxaan ka gelinaa warqad cad waxaa lagu qorayaa min suurat fulaan إلى سورة فلان كبر سوقات مجادل وكأجيه كتابك وحنا كبلوضي والمحسنات من النساء وكبلوضي وجزك الشنادة وحلو قري من والمحسنات من النساء وسورة النساء وجزك الشنادة الوقري كجبنا مجادل وكأجيه سيدا سانا لو جلديني وحنا لقيا كتب تنوع عسى مساجد لقيا محايا المساجد أيدد وين كو آخرستان لكن دكسية المير ير أول بجوجة محو هاي كتاب القرآن قيبتي سهوس أما كور لقى صوب بالله وبقرة لقى صوب بالله لبعض دم بهدي أي مقنتها علمها منفعة لها لكن وحين جينا مساجد جينا وحقبت كأنه أنت كليكم أكا وحقبنا هوانك إن لفريق جرابة وآت كأوليته ما هاي قدام جرابة قدام مكافين كرنا أود النظام دنا إله سبحانه وتعالى ونصين كرا أود بوليه waan taakuleynaa hadii la guri uu ka dumo ama guri ay lahayn ama wax umsi ay ka yihiin ama qofta laga dhintay oo ilmo yar yar wax taakule aan haysanin agoon yar yar haysata ayadana xoogaa ma badnin laakiin waan isku daynaa wax inaan ka qabano mararka qaar xaafadahan dhaxmarnaa dadka aan baahanaha aan kaarasha lahayn
muxuu ahaay wali aan UNHCR na aynan register gareynin ayaga laftirkooda waxaan u ururinaa raashin la dhaho kiilo oo u bixinay raashinkaas qof kasta oo tacdiimka ka tirsan wuu keenayaa burka kiilaad ka keenaysaa bariiska kiilo baastada kiilo sonkorta kiilo hadaa caano ku dari karto falilaahi alxamdu wal minna inta markaan isu keenno haddana dariskaaga dadkii aad u malaynayso inay wax bixin karaan ayagana waan ka soo aruurinaa waxaan soo qorsheynaa marka dadka baahan ee balogyada ku jira inta aan ka gaari karno kadib haddana raajishinka intaan isku majelisno yaan dib intaan u qaybino xirxirno yaa haddana dib loogu celiyaa xaafadihii meeshan aad arkaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodiisa cilmigiisaan ku helnay guri ma aanan lahayn markaan meesha bilaabaynay dhul ma aanan lahayn anaga waxaan iska aruurinay dhul baan gadanay haddana gurigiyaan dib u dhisanay meeshan waa muxuu ahaaye howlkii kitaabada lagu aruurinayay markii la sameeyay intay sameys u jooga ay yihiinba waxaa kaloo leenahay xafiis maktabad oo uu noo dhex yaalo photocopy machiinki printer muxuu ahaaye iyo scan mid leh laakiin waxaa naga maqan computerkan insha Allah waan sugaynaa ilaahay idinkiis dad baa noo ballan qaaday inta kale waxaa sii dhamaystir wallaahi hawshan horta waa hawl aad loogu baahan yahay kutubta ilaahay ay wada dayacan oo waxay yaalaan meel walba oo aad martid dugsi walba oo iridkiisa marto iyo madraso walba iridkeeda marto ama aad gudaha u gasho kutubta ilaahay kalaam Allah ku qornaa baad daadsan in horta kutubta dayacooda la asturo taa waxa noo sii dheer waxaan aragnay haween anaga naga mid ah oo haweenka dhul haaqe ay waxay arkeen qashinkii ay xaaqayeen oo gubayeen dhaxdiisi dad qashin soo daadiyeen oo qashinkii la soo daadiyay ay ku jiraan safxado kitaabka kamid ah kitaab kariimka kamid ah way iska qaracmeen mar kutubtii soo aruuriyeen way noo keeneen awal baa anagu fikradu nagu jirtay haddana wixii la sii arkay waxa kale jirtay gabar anaga naga mid ah oo ayadana ka soo guurtay magaalo kale oo soo aragtay tacdiim kitaabillah meel lagu hay magaalada Habasweyne ayadoo qalbiga ku haysa haddana wixii markii la arkay anaga inta isugu kayna yeertay nin walbana oo dhibaatadii uu dareemayo kitaabka ilaahay dayacaad ku dhacday ihaanada ilmaha yar yarka ee aqoonta u lahayn ay marinhay ayaan muxuu ahaay aan go'aansanay in bal kitaabka ilaahay wixii aan awoodi karno inaan asturno dayacaas faraha badanna waxa keenay ilmihii 5 jir xataa dugsiga markuu joogo kitaab la siinaya kutuba la tawsiicinaya waa la qaybinaya cunugan kitaabka ma asturi karaa ma xafidi karaa ma yaqaana quality-ga kitaabka kalaam Allah uu leeyahay isma dhahay waa la siina la qaybinaa nin walba wuxuu leeyahay waalidkayga ula baxay dantaasaan leeyahay muraadkaasaan leeyahay ilmihii kutubtii ma garanayaan ayagoo wataan guriga dugsiga inta u dhaxaysa isku dagaalayeen kitaabka dhulka ku dhacaya waa dilaacaya jaldigu ka go'aya safxadaha go'aya dib uma fiirnaa xibadbada isaga tagayeen ama dugsigeeba ku dancinaa intay meel suraan roob ku helaya ama guriga dhexdiisaba marka dayacaada faraha badan markaan aragnay ayaa muxuu ahaay gabadhana ay soo aragtay nidaam dhisan oo anagoo kale ah oo ay nagu soo biirisay waa Firdawsa Gaani ayaan isu imaanay oo muxuu ahaay meel fariisanay maalinka isu imaanayna wallahi runtii waxa maan haysanin garoonka ciid lagu tukadaan habeenimo isugu imaano isla fariisanay garoonka ciid bannaan ah intaan isla fariisanay ku wada hadalnay muwaafaqaan isla gaarnay xaafadahan kala galnay waxaan soo urursanay qarashkii wuxuu noo noqday lacag 60 kun dhulkan aan ku gadanay lacag yar ka soo hartay dhulka markaan gadanay kadib ayaan haddana dhismihiisi balseen ku dhisan karnaa gurigan hadduu roob imaado waa guri dumi kara kitaabada ilaahay asagoo ay ku jiraan hadduu ku dumo ku fariisto waa ihaano kale bal guriga aan dhisno gurihii marka waxaan ku dhisanay hardware-radan tagnay deynaan ka soo qaadanay gurigan aan horta dhisanay guriga markaan dhisanay iska faali u sameynay kitaabada intaan u soo wareejisanay kadib haddana tartiib ala taaqa halkan waxaan nooga dhisan kushiin oo cuntada lagu kariyo xagan waxaan nooga dhisan xafiis yar oo aan muxuu ahaay qalabkan uu noo yaalo intaasba waxaan ku soo qaadanaynay deymanka ka soo qaadanaynay dadka ganacsatada magaalada kadibna markii ay bil walba si noo soo galaan wax uga bixinaynay waxa kale oo leenahay baabuur yar oo Probox ah gabar baa bixisay gabdhaha tacdiimka kamid ah oo baabuur meesha tay soo dhigtay furihiisa dhibtay nasiib darro gaariga wuxuu noqday gaari taargasoom oo aan shaqad gadin karno mar walba lagu dhagan yahay marka waan iska dhigno wuu yaala xal baan u raadinaynaa haduu Ilaahay idmo oo insha Allah taala ramadaanka markuu naga dhamaado hada shawaalka lagu jiraa kadib waxaan rabnaa inaan xal u raadino oo sidii macna gaari ku socon lahaa ku shaqeyn lahaa ku talagalka gaarigaasna ma aha in lagu raaxaysto ama shaqo kale lagu qabtay in kitaabada lagu soo aruuriyo madaarista masaajidada tuulooyinka
adi hadda ilaa waxaan gaarsiisanahay Dhadhaab Xagar Dheer iyo Dhagaxley wayna noo keeneen waana ka soo qaadnay waan u sameynay waan u celinay kuwa cusub oo nagu soo dagayna waan siinay saddexda magaalo kale ee Dhagaxley Xagar Dheer iyo Dhadhaab macallimiinta dugsiyada dhigay madaarista ayaana yaqaan way nala soo hadlaan baabuurkaas aan soo saarnay kitaabadaas oo go'an ka dajiya intaas oo kitaabna noo soo dhiiba sidii aan sameynaa باذن الله تعالى waan ka dhaxsoo galan kaalada kulli horta wali waxaan joognaa qaybihii oo taxdiim kitaabillah kitaabada sidaan horay idinku sheegay kitaabada ay dhow yihiin qabashadooda photocopy aan u bixinaa oo hareerahan ka gelinaa photocopy-ga aan bixinayno kitaabka Ilaahay baan ka bixinaa waa kaas labadaas juski koowaad oo suuratul baqara iyo juski labaad oo sodonaad oo jus ama ah dhinacyadaasayna ka rifmaan kitaabada oo ay kaabida uga baahan yihiin oo caruurta yar yarka ay ka rifaan marka biinka intaan ka bixino ayaan safxadii marka loo baahan yahay aan gashanaa sidan oo kale waatan hadda safxadaas noogu jirta sidaas markaan u gashano kadib hadda mashiinta way halaysan tahay sameysay u baahan tahay laakiin hadda ka hor waan ku shaqaysanaynay kadibna sidaas oo kale aan u soo saarnaa oo aan macnaha ku kaabnaa kitaabka meeshii ka dhineed safxaad ha ka dhinaato ama jisko dhan ha maqnaado ama muxuu ahaaye qayb ha maqnaato ama qaybta hore ama qaybta dambe sidaas aan ku kaabnaa oo kitaabka u dhaxgelinaa labada hareer baan ka saarnaa hadii ay ka maqan tahay jiska ama hadda meeshan oo kale waxaan ku hayaa watiin wa zaytuun suuratul tiin iyo iqra bismi rabbika alladhi khalaq oo suuratul alaq ah ilaa intaas iyo wixii ka dambeeya sidaas qaybta dambe looga gelinaya qaybta horena juska suuratul baqara ugu horeeyay alif laam mim inta ban kaabi karnaa labada juska alif laam mim ka soo bilowda sayqulu sufaha ku imaada iyo juska ka soo bilowda amma oo taga birabbinaas labada meel waan kaabi karnaa wixii ka badan oo inta ka badan oo kitaabku ka rifan yahay waan qornaa marka waxa la qori kitaabka suurada uu ka bilowday iyo suurada uu ku dhamaaday sidaan hore idinku soo sheegay waa la qori qoraalka kitaabadaas ku qoranna waxa la geeyni masaajida maxay dad caaqil ah joogo oo waaweyn laakiin kitaabada la kabi waa dugsiyada oo ilmaha yar yar hadii kitaabkii ku wareerayeen hadii kitaabka bilowgiisa iyo dhamaadkiisa ay waayaan marka sidaasan mashiintan ugu shaqaysanaa mashiintan cusubna Ilaahay baa noo keenay computer laptop ayaa ka maqan Ilaahay idimkii sidaasan rabnaa inuu ku sameysano waa Canon tan waa HP midan waa Canon waa 4 in set oo waxay leedahay digital key leedahay waxay leedahay scan waxay leedahay print waxay leedahay photocopy marka ayada waxaan u sugahaynaa laptop si ay macnaha wax soo saarkayna u farabato oo hadda inta aan soo saarnay in ka badan aan soo saarnay mashiintan waxay noo soo saari jirtay maalinkii 60 page ay noo soo saari jirtay wayna hawl gabtay hadda laakiin tan insha Allah waxaan jecelnahay in aan maalintii aan heli karno ilaa 200 xabo ilaa ama 1000 xabo amal oo photocopy la baxnay ama aan scan gareyno oo sidaas aan print aan ku dhahnay computer laptop noo maqan insha Allah haduu Ilaahay soo gaarsiyo kaasaan ku sameeysan rabnaa waxaan sii jeclaanahay waliba makiinad daabacaad oo weyn inaan sii helno insha Allah Ilaahay idinkiisa haduu Ilaahay idmo shaqada xafiiskana waa sidaas ama waxyaalo yar yar oo kale loo baahdo qoraalo aan u baahano computerka markuu noo imaado ayaan sameeysan doonaa insha Allah hadda wuu cusub yahay xafiiskan mar dhow ayaa la dhisay markii hore mashiintan dhulkan iskala fadhinay banaankaasaan la fariisan jirnay halowga inaga halowda xataa waxaan u eensanaynaa siigada iyo habaaska naga galay marka insha Allah Ilaahay idimkii dadweynaha caalamka ku nool muslimiinta ee jecel khayrka waxaan ka codsanaynaa in ayna soo caawiyaan insha Allah biidnillaahi alkariim waxay caawinayaan anaga ma shakhsiyaadkayna ma waa kitaabka Allah bay caawinayaan kitaabka Rabbi subhanahu wa ta'ala uu leeyahay ay caawinayaan maanta dhigo bari aad guratida way hawsha